Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed waxaa u soo hoyday guushii labaad baa u soo hoyatay oo uu Ilaahay waxa weeye dalkooda ku soo celiyey dadaal badan oo ay xukuumaddu ka gashay Ilaahay waxa weeye ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa iyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo aqalladooda baarlamaan iyo waxa weeye dawladda dhammaanteedba ajar iyo xasanaad ha ka siiyo gudashada waajibkaas dhalinyaro Soomaaliyeed oo waxa weeye gurnimadii laga saaray oo gobonnimadoodii loo soo celiyey waxa weeye qofku haddii uu xabsi ku jiro oo xabsiga laga soo daayo ama hadduu qaamaysan yahay qaanta laga bixiyo waxa ugu weyn qof muslim loo tara weeyaan arrinkan gudasho waajib kaliya ma ahane waxa weeye arrin Ilaahay loogu dhawaado weeyaan dadaalka badan oo ay dawladdu ka samaysay guud ahaanteedu ama ha ahaato wasaaradda cadaaladda ama ha ahaato wasaaradda arrimaha dibadda ama xafiis xeeraaliye guud ha ahaato hoggaanka ra'iisul wasaaraha waxa weeye dhammaanteenba maanta farxad weyn ayay noo tahay annagoo shacabka Soomaaliyeed magacooda ku hadlayna mudane ra'iisul wasaare waxaan leenahay jasaakumullahu khayr Ilaahay ajar iyo xasanaad ha idinka siiyo gudashada waajibkiina idinkagama mahadnaqayno laakiin tani waa Ilaahay u dhawaanshiyo weeyaan ajar baad ka helaysaan Ilaahay baad ugu dhawaanaysaan dad Soomaaliyeed baad xorriyadooda u soo celiseen inta dhimanna ra'iisul wasaare waa kaaga baahannahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka mudane mahad waan u mahad celinayaa waxaa kaloon u mahad celinayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed oo ka soo shaqeeyey golaha wasiirada madaxda qaranka oo madaxweynuhu ugu horeeyo halkan waxaan amaan uga jeedinayaa xeer ilaaliyaha iyo safiirkeena Hindiya noo fadhida iyo balal oo ka yimid Hindiya oo maxaabiistan iyagu halkaas ka soo qaaday muddadii koobneed oo ay xukuumaddu jirtay waa wadankii saddexaad oo aan ka soo deynay maxaabiis kuwa ugu horreeyay Ethiopia aan ka soo deynay kuwa ku xigay Seychelles baan ka keennay kuwan waxaan ka keennay India waa 41 waxaa hartay 76 kale oo wali India ku maqan oo aan keeni doona haddii Ilaahay yiraahdo dhammaadka bishan dhammaadka bishan February arrinkan India waxa uu uga duwan yahay waliba kuwa hore waxa uu tilmaamayaa wada shaqayn buuxda ee dhammaan hay'adaha dawladda xukuumaddu waxay la saxeexatay heshiis dalka India heshiiska waxaan u geynay guddoonka baarlamaanka guddoonkii waxay ka soo ansixiyeen baarlamaanka kadib ayaan ula noqonnay dawladda India sidaasaa maxaabiista lagu soo daayay in dhallinyaradana ay yimaadaan waxaa marka saldhig u ah wada shaqaynta hay'adaha oo dhan ee dawladda shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay meel walba ay joogaan inta dhallinyaradeennu ay dalka dibaddooda ku xiran tahay sidaan waagii hore idiin sheegay ma nasan doonna haddii Ilaahay yiraahdo inta qof Soomaaliyeed meel ku xiran yahay waan soo deyn doonnaa kuwa halkan yimid iyagana waxaan leenahay dalkiina ku soo dhawaada waxaan u sheegaynaa waalidkood la caweeyo carruurtiina waxa kale oo aan leeyahay haddii aan gacmaha isqabsanno maalin walba guul sidaan ayaa mid ka fiican ayaa noo soo hoyanaysa waxaan u hambaleynayaa dhammaan dadka ka shaqeeyay waxaan u mahad celinayaa dhammaan hay'adaha dawladda arrimahan ku howlanaa waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato waa mahadsantiin